waxaa jira fariimo beena oo dadka aada loogu fidiyo. waxaan rabaa inaan ka hadlo laba nooc oo mid ay laba tahay. nooca koobaad aan raba inaan ka hadlo waa fariimo badan oo qoraal idinku soo gaaraya oo laleeyahay waxa haddaad akhrida waxaasaad heli, aadkus haddaad akhrida waxaasaad heli, qurwalle inta haddaad akhrida waxaasaad heli, dikri haddaad akhrida waxaasaad heli, muddo intaa le gudaheed baad waxaad ku arki, haddaad samayn weyey fariintan fidi, haddaad fidin weyda dhibkaasaa kugu dhici, oo ballanqaadi oo sidaasoo badan oo beena. arrimahaasi shaki badan waxaa laga qabaa inay ka dambeeyaan dad aan muslim ahayn. nuxurka iyo ujeedaduna diinta dadka in laga shaki geliyo ay tahay. laba arrimoodba marka waa muhim inaad ku baraarugto. marka koobaad waxaan la sheegaya waad heli oo kugu dhici laleeyahay waxba kama jiro. aayadna ma sheegin, xadiid nabi oo suganna ma sheegin. waa been ay dadku sheegeen, waa been la alifay oon sal iyo raadtoona lahayn. saa darteed ballanqaadyadani diinta ka mid maaha. sax aad ku siin laqaday fadli weelahay tusaale ahaan, laakiin hadda akhri weyda waxaasaa kugu dhici iyo haddaad akhrinta akhrida muddo intaa la egbada wax ku helido been wey. qodobka labaad ee ku baraarugta ay tahay waa xumaanta ka dambaysa. haddii maanta ballanqaadka aad rumayso ood arki weydo, mid labaad aad arki weydo, mid saddexaad arki weydo, mid shanaad arki weydo, mid tobnaad arki weydo, marka dambe waxaa iman diinta waxaanu ballan qaadaysee wada beentaa maxay tahay. diintaada ka shakida wey waxaa labaad imanaya. waana yoolka laga shakisan yahay hay-ada iyo shakhsiyaad iyo dad badanoo waxaa ka shaqaynaya inay hiigsanayaan. haddaba si khaldan yaan lagu raran. fariinta labaad aan raba inaan baraarujiyo waxaa weeye maalmahan qof codkiisu aada isugu egyahay, isshabaho oo wuxuu soo diraa fariimo xambaarsan axaadiis nabi sal slam laakiin beena. aan laba fariimood ka soo qaato. waxaa laga yaabaa inaad ila aragteen aada iyadoo la isugu dirayo fariin odhanaysaa nabi maxamed baa sal slam 4 jirkay ku jiradaan, 4 jirkay dumiyaan, 4 risiqay reebaan, 4 risiqay furaan, 4 wejigay nuuriyaan, 4 wejigay nuurkiis ka qaadaan. taas waa been nabi maxamed ma dhihin sal slam. waa dardaaranno dhakhaatiir bixiyeen. ibn alqayim zaad almacaadka akhirkiisa ku sheegay. qaarkoodna niman dhakhaatiir oo griigii hore jalinios iyo rag lamid a bixiyoon muslim ba ahayn. taas nabigaa yidhi waa been, waxba kama jiro. isla fariintaa waxaa ku duuban in nabigu calayh isalaatu wasalaam uu yidhi saytuunku saliidda zaytuunku 70 cudur bay dawa ka tahay. waa been, nabigu ma dhihin sal ly slam. waxaa ka mid ah aadaanka hala aamuso waxay aan la akhriin. nabi maxamed wuxuu yidhi haddaad aadaankoo socda wax akhrido shahaadada sakaraadka markuu qoto tawxiidka haleeli maysid. iyana waa been, waxba kama jiro. nabi maxamed baa hadli jiray, saxaabadaa hadli jiray oo sheekaysan jiray aadaankoo socda, sida muwatta maalik laga wariyey. cumar markuu khudbaynayo fuulo mimbarka salaada la joojin jiray, inta la aadaamayana waa la sheekaysan jiray. saasay saxaabadu ahaan jiray. marka iyana waa been, nabigu ma dhihin. waxaa ka mid ahoo fariinta uu xambaarsan yahay rumaanka iniintiisa iyo midhihiisa mid kastaba biyaha ku jira jannay ka yimaadeen ama biyo jannaa ku jira. waa been, nabi maxamed ma dhihin sal slam. fariintaa dhan laba eray baa runka ah. nabigu wuxuu yidhi balliquu canii walow aaya, iyo nabigu wuxuu yidhi xabatu sawdaa shifaaun min kulli daa. inta kale waa been, nabigu ma dhihin sal slam. fariinta labaad aan tusaalahan kusoo qaadanaya kale waxaa weeye codkaa shabaha ninkaana u eg yaa wuxuu werinayaa fariin ku bilaabanaysa wallaahi wabillaahi watallaahi. haddaad dhegaysato wuu ku saamaynayaa, qalbigaaga waxbuu ka bedelayaa. duruusun fi lxub. intaa dhaarta ah muxuu ku dhaartay? been buu soo wadaa. wuxuu leeyahay nabiga iyo cumar iyo abubakar iyo abudar baa meel isugu yimid. nabigu abubakar buu weydiiyeyoo maxaad jeceshahay buui. adduunyada 3 baan u jeclahay buui. cumar buu weydiiyeyoo 3 baan u jeclahay buui. abudar buu weydiiyeyoo 3 baan u jeclahayoo jire iyo cudur iyaa ka mida. kadib nabigaa la weydiiyo adduunyada 3 baan u jeclahayoo atiibu wاnisaau wasalaatu buu yiri buu leeyahay. intan dambe oo weli wax khaldani ku jiraa ka jirta. tan nabiga calayh salaam way jirtaa. xubiba ilaya min dunyaakum atiibu wاnisaa wajucilat quratu ayni fi الsalaa. adduunyadiina riwaayaadka qaarkood odhanaya 3 waa been. riwaayada 3 ma jirto, waayo salaadu adduunka ka mid maahaba. atiibu wاnisaa nabigu waa yidhi. sheekadan kale ee ku lamaanay waa been. meel kutubu sunna ay kaga qoran tahayna ma jiro. inay sidaas tahayna culammadu waa sheegeen.
nin la yidhahda Qastalaani Mawaahib laduniya ku sheegay ajruuna fi kashf al-khafaa markuu sheegay meel lagu garanayo inay jirin bay sheegeen marka sheekada beenta buu dhaar uusan ilaahay ugu baari samaynin buu ka horreysiinaya codka ninka waa isu egyihiin dee ciddii garanaysa farinteeda ha gaadhiso muslimka beentana dhaxwada ka dahala yidhahda nabigan laga been sheegay been la mid maaha khayr baan jeclahayna qiil uma aha in nabiga laga been sheego dadka fariimaha beenta sheegayana intaad waxaan khayr baan jecelahay tiraahdaan ha dambaabina oo beenta axaadiista haddaad 100 qof u qorto u dirto wada fuwaar garaysaan oo sii wada dhalan mid wuxuu ku leeyahay akharka agtaada yanan fadhiin qofka waliba waxay u sii badinayaa codkiisa isii oo adkaysinaya hatta carabi ma kasiyo ma garan yaqaan carabi soo wada qofkan ma yaqaan tan dambe saddexda u dhaaranayana Abu Dharr buu magaciisa kale laayay tan horana sadaqa jaariyu garan laayay sadaqatu jaar wiilay jaar waa dariste jaariya ma sadaqa soconaysa ma hatta jaariya jaar buu kala kicin laayay Abu Dharr buu magaciisa kicin laayay xayntan beentan axaadiista meel ka soo gura الاستعداد ليوم المعاد من حجر لو تيرني بينتها يا ثلاثيات كي رباعيات كي خماسيات كي سداسيات كي عشاريات كبينتها يكبحين بانو مالينا يا مديبو ما نقونين انه قير كسو دلدل waxaan rabaa fariintaydu khayr ka fidiya laakiin iska hubsada dameera beenta lagu dhaansada ha noqonina makarafoona beenta u adeega ha noqonina ogaada nabiga laga been sheegay waa dambi weyn nabigu wuxuu yidhi kadiban calayya laysa ka kadiban ala ahad بين لا يغشى لمن ما بين قف كلا laga sheegay فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار إلهي laga yaabo fariinteeda qofkii soo duubay cidii garanaysa dadka hal la gaarsiiyo beenta hal iska ilaaliyo khayr lahubana hal la fidiyo wa mahsantiin